wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Daadmareed ayaa maanta fulisay howlgal ballaaran oo lagu joojinayo shiditaanka dhuxusha kaasoo laga fuliyay qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Daadmareed waxaana intii uu howlgalkani socday wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Daadmareed Cabdiqaadir Dawaa Xaaji Abakar oo la hadlay warbaahinta qaranku uu faahfaahin ka bixiyay ujeedada howlgalkan isagoona xusay muhiimadda ay leedahay dadaalada lagu xakameynayo xaalufinta deegaanka iyo waxyeelada ka dhalata shiditaanka dhuxusha sidoo kalena wuxuu fariin adag u diray cid kasta oo ku howlan xaalufinta dhirta iyo ka ganacsiga dhuxusha maanta waxaan u baxnay howlgal ilaalinta deegaanka iyo la dagaalanka dhuxusha howlgalkaas waxaanu ka bilownay tuulada Xaaji Diiriye jameecadka iyo bal cilmi markaanu joogno kulli tuulooyin kale oo badanna way naga horeeyaan oo sii mari doona oo Goreeyo Ooda iyo Cabdalla Guran Qurac Kulle Araala Bidaar iyo kuwa kale oo kasii horeeyaba howlgalkaas waxa weeyaan imanka waxaan ku qabanay hal maxbuus baanu haynaa dhuxushii iyo godkiina waa ka gubanaya howlgalkaasina waxa weeyaan waa mid howlgalku joogto ah oo saacad walba waxa weeyaan dhuxulaystadii si kasta oo wacyigelin lagu sameeyo si kasta oo digniin loo siiyo waxaad moodaa inay bereerayaan waana caddahay inay bereerayaan waayo iyagu way garanayaan in macnaha deegaankan la dhibaateynayo ama geedkan la jaraya uu deegaankeena dhibaato badan u yahay geedkani waxa weeye waa geedkan ku noolahay geedkan xoolaheena ku nool xoolihiina innaga ayaa ku nool geedku hadduu meesha ka baxana waxa weeyaan waxa imanaysa cimiladu way isbedelaysaa marka waxa weeyaan qofka aan deegaanka isaga u turaynin waxa weeyaan annaguna sharciga ayaan marinayna waa qabanaynaa howlgalkaasna wuu soconayaa in badanna hore wuu nagu socday waxaa kaloo u mahadnaqayaa ciidanka booliiska gobolka Daadmareed oo runtii aad iyo aad ugu heelan deegaanka nagala shaqeeya iyo nabadgelyadaba runtiina aanan la'aantood howlahan aanu qabanayna aan inoo qabsoomeen geestooda qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayada deegaanka ayaa soo dhaweeyay howlgalkan ay wasaaraddu ku ilaalinayso deegaanka halkan waxaanu ugu mahad celinaynaa dawladda Soomaaliland laanta dhirta iyo daaqa suduwaha khadar oo halkan noogu yimi oo howlgal ku qabanaya haddii alla ku roon yahay dhuxusha dhirta dabargoynta iyo xasuuqa dhulka lagu samaynayo ee loo adkaysan layaanu u adkaysan lahayn aanu qayladhaanta ugu samaynay isagoo oo noo dhago fudud oo uu noo yimi waanu ugu mahadinaynaa waxa weeyaan in badanna waanu u dignay dadka in badanna waanu u dignay dadka qaarna wacyigelintii way qaateen qaarna waa loo taaglayay kuwii loo taag la'aa waxaanu doonaynaa aanu gacan bira ku qabanno waxay maanta geed qallalan oo la garaacayaa ma jiro waa geedkii qoyanaa mid sare iyo mid hooseba loo aabaandeeyi maayo dadka waxaad mooddaa inaanay dhulka lahayn inay muqaawil yihiin inay meel ka soo guureen inay u guurayaan baad mooddaa meeshii ay ka soo guureen meeshana ay ciribtir dhaqaale curyaamin ku samaynayaan waxaa walaalayaal aan idiin sheegayaa way ku mahadsan yihiin iminkana waxaanu joognaa godkii u horreeyey howlgalkiina wuu noo socdaa waanu sii soconnaa qaar badan baanu heli doonnaa qaar badanna waanu haynaa maxaabuusa qaarna waa naga yaaceen Sayid Maxamed Cumar Sayid Darwiish warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Oodweyne